Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka hambalyeynayaa doorashadii wanaagsaneyd ee qiimaha iyo qaayaha lahayd u dhacday qaranka Somalilan. Mar labaad waxaan hambalyeynayaa ninkii qoray buuggii laga qoray Maxamed Xaashi Diiriye Lixle. Isagana waan hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambalyo. Qodob baan kaga hadlayaa kilibkan. Qodobkaan kaga hadlayaana waxa weeye nimankii siyaasiyiinta ahaa ee uu ka mid yahay raggii SNM aasaasay mid ka mid ayaa waxay ka sheekeynayaan Lixle inuu kusoo biiray SNM 85-kii. marka arrinkan waxaan filayaa odayaashu dub ay isugu noqdaan. Lixle kumuu soo biirin SNM baa Lixle kusoo biirtay. SNM markii dibadda lagaga dhawaaqay iyadoo aan ciidan lahayn oo dhowr qof oo dharcadoo siyaasiyiin ah ayuu Lixle isagu iyo ummadda qaranka reer Somalilan intii hoos joogtayba xil gaar ah isa saareen. Lixle wuxuu ahaa ninkii ay nagu aqoonsatay dowladdii garab saarka aynu la lahayn ee Mangista Xayla Maryam operationkiisa. SNM operationkii lagu aqoonsaday buu ahaa operationkii Mandheere uu Lixle fuliyey. SNM cidina may maqal, cidina may aqoon, idaacadaha caalamka lagama aqoon. 4 nin oo siyaasiyiin oo inta ku shireen London magaca bixiyey bay ahaayeen. marka ujeedadan ka leeyahay waxa weeye in kuwii ururkaba dhaqaajiyey ee xoojiyey ee dhiigga geliyey ee dheecaanka geliyey ee magacan bixiyey la yidhaaho waxaa ku soo biiray SNM 85-kii dee wax jirta maaha. waana laydinla ogaa wax soconayana maaha. waa anigoo idhahaa Maxamed Cali SNM wuxuu kusoo biiray 85-kii, Maxamed Cali SNM wuxuu kusoo biiray 83-kii. yaa odhan kara maanta bilis weydiiya haddii la dhaha Maxamed Cali goormuu SNM kusoo biiray. SNM de Maxamed Cali baa ahayd. SNM dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ciidan hubaysan buu ahaa. siyaasigii Maxamed Siyaad Barre ka soo cararay London buu joogay. markii uu soo dhawaadayna Diridha buu yimi iyo Jigjigo ay dub uga noqdaan ama gaashaamano u yimaadeen way ka noqdeen iyaduna. laakiin SNM yaa baray caalamka. SNM caalamka waxaa baray Lixle operationkii Mandheera 83-kii operationkii badbaado. Lixle gaashaamuu tegey 2 goor buu intii operationku soconayay gaashaamuu tegey. Maxamed Kaahin Axmed ayuu ahaa taliyihii aaggaa bari oo gaashaamo joogay oo habeennimadii 50-kii qori ay ciidankii shareero soo qaateen. maanta raggaa shareero rag badan baa ka nool. Bowrlaa ka nool, ina Nuur Faandhaa ka nool, rag fara badan oo Doolaal baa ka nool, rag fara badan oo kale ayaa ka nool. marka nimanka odayaasha siyaasiyiinta ahaa ee ka sheekeynayay Lixle wuxuu kusoo biiray halganka 85-kii taariikhdu caynka maaha. SNM baa Lixle kusoo biirtay, kuma soo biirin Lixle. SNM ayaa Lixle kusoo biirtay. operationka ka hor yaa yaqaanay SNM. niman baa meel ka hadlo wax dambe oo sii socday may jirin. Lixle wuxuu ahaa ninkii ciidankii shareero dagaal geliyey ee intuu ku jabiyey jeelka tikniigiisii iyo kaartadiisii iyagoo badqaba ay dib uga baxeen. Lixle waxa uu helinayay niman badan oo saraakiila oo aan halkan ka xusi karo Turki iyo Maxamuud Xayd ku magac dheer Xaydka ninkii duuliye ahaa. miyaad maqashay ninka? waa nin iska degan oo aanay arkaay imaqlaay sidan aan hayay midna aan ku jirin. maajistuu jooga wuu iska xoogsadaa. markii waddanku xoroobay xukunna faruus kaga qaaday, sheegiisa faruus kaga qaaday. dadku uma yaqaanaan bal maxamuud maxamed xayd karbadh oo duuliye sare ahaa oo ahaa gacantii labaad ee Lixle wax yaqaana arki maysaan. hor ilaahay bay waxauna ahay. Turki oo kale raggii la midka ahaa iyaguna saasoo kale ay ahay. waxaana laga yaabaa in Turki wax laga qoray de weliba waxaan filayaa dee ninka buugga qoray ma jooginaynin ingiriis buu jooga Xayd inaanay soo gaarin. laakiin hadduu Turku helay
hadduu turka helay lixle wuu hel. Marka waxaan leeyahay oo hadalka iga keenay lixle wuxuu kusoo biiray 85 kuma soo biirin isagoo askari ah oo operation fulinaya ayuu muur fadhiisanayn. waxaanu ahaa nin intelligent oo ugu fikrad wacan ilaa markan dambe uu geeriyoon doono ciidankii guutadii fadhiweyn ee commandosta ahayd ee tababarka dheer awaare kasoo baxday ee ku dhex dhintay lagu weyneynin burcaduuri uu joogay. ujeedadiisu waxay ahayd hargeysa ku socday. markaa gaani dawlad wuxuu dhintaanu hargeysa kuugu iman halkaa ugu tag. 3 guutaa isaga gaalabaxay 3dii guutaba madhe si wanaagsan u shahiidana wuu u dhintay. ilaaha u naxariisto. marka halkaa wax faahfaahin u dheeraada ka geli maayee hawshanu ciyaayar kuma imanin. nimankaas siyaasiyiinta ee warbaahinta iyo idaacadaha iyo had iyo jeer qaata war waxaan leenahay adduunyada darag baa nool. taariikhdan aad siinaysaan ead ka reebaysaan raggii idinka wax idinka dhigay ee magaca idiin sameeyey iska daayada. haddii kale mid iyo mid baa looga sheekeyn doonaa. ina miraa nool oo wuxuu ka geystay halganka aynu ognahay naafayntii cadowga soo ilaa waqtiga dheer soconaysay inta lagaga soo bilaabo baaldhaye lagu dhameynayey wajaale. marka sheekadu waan ku dheeraadee lixle snm kuma biirina snm baa kusoo biirtay. asalaamu calaykum.